shalay ay ahayd wargeyskan The Daily Nation leadkiisa ayaa wuxuu ka hadlayay in cimrigii kibaandhaha uu dhammaaday oo hadeertan la galayo cimri cusub oo loo yaqaano Huduma Number. isla marka wargeyska maanta The Daily Nation haddii aad fiirisid tifaatiraha guud ayaa taxriirka ama maaragtay editorial comment-ka uu bixiyay ayaa waxay haddana ku saabsan tahay dawladda iyo siday u maareyn doonto ama siday u maareynayso mashruuca dhan oo ku aadan Huduma Number. Explain Huduma Number for Kenyans to accept. ayuu leeyahay editor-ga The Daily Nation. yani shacabka horta ha laga dhaadhiciyo Huduma Number kan muxuu yahay si uu maaragtay shacabka uu u kasbado okay now waxaad ka hadlaysaa maaragtay in Somali isli loo gooyo oo parliamentary maaragtay constituency in meesha laga abaabulo taariikh ahaan waxaana lagu dhibaa I can safely say that on a national TV documentsyaasha dalkani waana lagu dhibaa aad baana lagu dhibaa ku cusub oo digitalized ayaa hadeertan hirgelay. Tell me. markii dhibkaas uuna haystay dowladda Soomaaliya aaday u liidatay yani wax lagaaga xishoodo ama lagaaga cabsado ama lagaaga heebadeysto meesha ma oolen. laakiin maanta dowladda Soomaaliya oo annaga roots kanaga aan kasoo wada jeedno ama aan Tanzanian ahaan ama aan Kenyan noqono whatever laakiin roots kanaga we always go back to our roots. dadkanaga iyo ancestors kanaga yani waxa la yiraahdaa ama buur aho ama buur ku tiirsano. waagaas marka dowladda way jilcaneed 30 sano u dambeysay. hadda laakiin dowladda way soo noolaanaysaa waxay ka ciyaaraysaa Horn of Africa platform. waxay ka hadlaysaa regional politics ee saameyn ku leedahay waxay saameyn ku leedahay siyaasadaha arrimaha dibadda yani foreign international politics. Soomaalida marka hadda la rabaa inay ka faa'iideystaan hadday gargortan geli karaan. hadduu waddanka Kenya uusan noo ogolaanaynin inaan Kenyan rasmi noqono documentiga sida Kenyanka kale ay ku helayaan aanan ku heli karin noo fududeeyay NFD ha lagu daro Soomaaliya. okay laakiin fikradaada baad ka hadlaysaa ilaa hadda qof fikradiisu ka hadlaa. so I'm giving a disclaimer fikrada sama fikrada RTM ayay ku soo way dhigi karaan. okay yani options ka u furan Soomaalida ku sheegaya marka waxaa kaloo u furan Soomaalida in ay istaageeraan ninkan Kenyanka kula ah laakiin aan Soomaaliga ahayn teeda kale ceeb ma aha in Soomaali tahay aan Kenyan tahay. waxaa jira Ugandan Kenyans jiraan si fiican dadkan oo western ka degan baluyada jalwada yani a very good portion number one oo qowmiyadahaas kamid ah si fiican Ugandese way originally dhankan imo Turkana iyo dhankan imo waxa way South Sudanese way Sudan xuduud la leeyihiin. Tanganyika hadda soo fiirisid Masaayda ma waa ogahay Masaay caruusha degan way jirtaa Masaay ka jaada way jirtaa anaka maxaa umada naga gadiyay waxaa jiro hadda su'aasha waxay tahay hadda waxa dhigaysataa nimankan Kostiga originalkooda waa Arab. dadkan qurqurxan oo cadcad yani waa Arab waa Yemen iyo meelahaas ay ka imaadeen. so ceeb ma aha inaad Soomaaliya ka timid ama awowga ka yimid oo aan North Eastern soo gashay kadibna aan Nairobi timid ceeb ma aha yani qofka Soomaaliga ma aha inuu u arko wax obstacle oo citizenship-ka ka celinayo. adoo bay daba oo aabaha ku dhashay hadda adiga isli ku dhalatay yara Kenyan. haddii qaxootinimo aad ku soo gashay Kenya 5 sano kadib xaq waxa u leedahay inaad Kenyan noqotid. marka waxa u maleynaa dhanka siyaasiyiinta Soomaalida inay wax ka halaysan tahay inay ayaga u midoobaan Soomaalinimo ahaan inay wax ku raadsadaan. laakiin se mar walba de waa iska arkaysaa political camps iska jiro nin walba siyaasadiisa meesha asaga uu u arkaayo in ay wax ka socon karaan iyo galaya
laakiin haddana lagama maarmi doono in soomaalinimada guud la ilaaliyo oo lagu gorgortamo. marka horta aan ka dhaxgalay adiga shakhsi ahaan koofiya guduud waayii hore markii la isu diiwaan gelinaya huduma number ma qaadatay? ha Okay. laakiin ilaa hadda ma aqaan numberkeygana ma aqaan kaarna lima siin laakiin faraha waa laga qaaday iyo wixii sawirkii iyo wixii waan sameeyey. okay marka waxaa sida dowladda ay leedahay maaragtay in 2 weeks time dadka maaragtay waxay heli doonaan notification oo xagga taleefanada SMS. meeshaad ka soo qaadan lahayd iyo laakiin miyay kula tahay koofiya guduud miyay kula tahay in maadaama ay tahay arrin cusub oo casriyeysan oo la leeyahay full proof weeyaan soomaalida talo miyay u fududaan doontaa mise saadaashaada maxay tahay? wallahi niyo aniga sida ay dadka dhan u wareersan yihiin huduma number ugu wareersan yihiin ugu wareersana Okay. yani information sax kama hayno. Okay. aan qof hayana ma laha. maxaa sabab u ah? Why? waxaa sabab u ah Yes. waxaa aad loo qiyaasayaa doorashada soo socota inay digital noqon doonto. Okay. aad loo qiyaasaya yani digital waxaan ka wadaa yani dadka inay guryahooda ka soo codeyn doonaan. Okay. Online. Telefonkaaga telefonkaada ama Okay. SMS ama wax saas oo kale ah. Okay. oo candidateskaada lagu soo gelin doono application la sameyn doono wax noocaas oo kale ah. Okay. coronavirus hadda siduu loo design gareeyna waxaa u malaynaysaa in la encourage gareynayo digital life nolosha oo digitalka ah. shirkadan la yiraahdo Zoom oo applicationka lagu kulmo oo video callka lagu sameeyo before coronavirus bogas iska waa isticmaali jiray malaha. laakiin the moment coronavirus uu bilowday in less than 3 months waxay ku sameeyeen $4 billion oo faa'iido ah. Wow. 3 bilood gudahood waxay ku sameeyeen $4 billion oo faa'iido ah. Profit, net profit. kolka horena xataa $100,000 xataa ma heli jirin the whole year sanadkan. macnaha waxaa la soo wadaa yani dadka oo siyaasadda falanqeeya caalamka waxay sheegaan in currency oo ka duwan currencyga hadda la isticmaalo inuu imaan karo. waxaa laga yaabaa sicirka shidaalka iyo oil and gas in ay saameyn ku yeelan doonto coronavirus oo wixii coronavirus ka dambeeyo yani accesska loo heli doono waxyaalahaas ay adkaan doonto. waxaa la sheegayaa marka sida oo adduunka dhan ay u falanqeynayaan Kenyana way imaan kartaa Kenya Ireland isolated ma adduunkii la nooshahay. so haddii currencyga Kenyan shillingka ama dollarka la xareeyo oo la dhaho kaba soo qaad bitcoin coinskaas oo digital coinska lagu shaqaysana hadda aan kula hadlayno Soomaaliya way ka jirtaa digital currency. يعني مقدش انت جوجي حتى like 21 days ان جوجي ما استعمالين كاش دولار ها هاتو سومالي شيلين ها هاتو كاش سام وقبلنا تليفون كاس لوي تليفون كان كشوفنا مع السلامه ام بيس عمل اي في سي الله كتور حتى nimanka tuugsanayo waxay wataan placard waxay wataan kaara inta ugu dhagan oo numberkooda lacagta loogu tuurayo ku qoran tahay. masaajidka waxa arkay markii salaada laga baxo masaakiinta way istaagan tahay qof walba telefonkiisa hoos u ka diraa lacagta. yani nolosha marka in digital laga dhigi doono doorashada marka naftirkeeda in digital laga dhigi doono ama posto lagu codeyn doono ama online internet lagu codeyn doono wax noocaas oo kale dadka way saadaalinayaan. laakiinse maanta huduma number purpose-kiisa iyo ulajeedkiisa iyo waxa uu Kenyaanka ugu fadhiyo cid sharaxi karta male oon dowladda ahayn. dowladdana weli dadka waxay ku haysaa mugdiga inay weli iska guesswork inay dadka ku socdaan ay rabaan sheekada ay surprise oga dhigaan hadhow. waxaa xataa macquul ah dadka sheegayaan BBI hadda waxay u ballansanaayeen shalay oo khamiis ah collection of signatures laakiin se waa la dib baa loo dhigay in saxiix 5 milyan la aruuriyo dib baa loo dhigay. dadaa waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu codsaday in dib loo dhigo sababtoo waagii huduma number la goosanayay asaga qowmiyadiisa iyo dhulka uu kasoo jeedo maysan qaadanin asagana muu dhiirigelin inay qaataan. waa xasuusataa inuu aad uga cagajiidayo huduma numberkan. so huduma numberkan waxay u muuqataa inuu saameyn ku yeelan doono doorashada soo socoto
nimanka siyaasiyiintana weli korkortan uu u socdo qaarkoodna isku xininya taabanayaan marka waa arrin mystery ah waay